الله والصلاة والسلام على رسول الله. مقعيقا ومحمد علي محمد ودايركتر كمد الدايركتر رضا دارشوف ريهابيليتيشن سنترز أهنا قيب فاينانشال كنترولر دارشوف ريهابيليتيشن سنترز waxaan maaragtay maasha Allah idin soo gudbinaynaa oo idin la wadaagaynaa xarumaha Daarshifa Rehabilitation Centers iyo waxa ay yihiin iyo wax qabadkooda in bal la ogaado bulshada daawanayso caalamka daafihiisa ku nool ay la socdaan ay ogaadaan wax ka ogaadaan wax qabadkeeda iyo waxa ay tahay iyo xilliga Allah aasaasay iyo maxaa feedback ama maxaa arintan ka yimid maxay umada u haysaa maxay arintaas ay ka ogyihiin bulshada baahi jirto oo maanta shacabkeena ay u baahan yihiin oo haddana ka qarsoon oo aysan arkaynin oo ay u baahan inay la socdaan wax ka ogaadaan laga yaabaa in adiga laftaada arinta baahida ku hayso waxaa dhici kara inay cid aad og tahay oo u baahan oo arintan baahi ay u hayso inay jirto waxaa kale oo aad awood u leedahay in aad maaragtay cid kale oo u baahan oo laakiin caawinaad u baahan ama in la caawiyo u baahan ama in la dhiirigeliyo u baahan inaad maaragtay iyada laftirkeeda ama aad og tahay ama aad ogaan doontaba 2011 waxayna asaaskeeda oo ahaa saddex marxaladood oo kala duwan oo ay soo martay oo marxaladda hadda ay ku jirto ugu dambayso 2011 ilaa iyo 2013 waxay martay laba marxaladood 2011 waxay martay marxalad bukaan socod ah oo yani quraansaar kaliya ah isla 6 bilood kadib marxaladii labaad ayay u gudubtay oo ah marxalad bukaan jiif ah oo isla quraansaarka ah marxaladda saddexaad waa marxaladda hadda ay ku jirto oo ah rehabilitationka ama dhaqan celinta oo ay u gudubtay 2013 ilaa iyo maalinka maanta ah ay ku jirto marka marxaladda koowaad baahi jirtay ayaa loo aasaasay oo ahayd quraansaar ama cilaaj oo dadka bukaan socodka sida aan naqaano cilaajyada aan u garanayno oo kala la mid ah oo waxba ka duwaneyn laakiin marxaladii labaad oo isla bukaan jiifka xagga cilaajka ah ayaa waxaa timid baahida timida waxay ahayd inay jiraan dad xanuunsan oo aan markasta la soo kaxayn karin oo u baahan meel ay seexdaan oo si quraanka loo saaro loo daaweeyo arintii iyada ahaa marka waxay noo sii kordhisay inaan u ballaarano meeshii hal qol oo quraansaar aan ku sameynaynay in guri apartments ama flat laba qol iyo fadhigiisa ah iyo musqushii oo isku xiran inaan kireysano oo aan ku bilowno in yani qofkii ugu horeeyay oo xanuunsanaa aan seexino qolalkii ka mid ah qolkii kalena aan quraansaarkii aan sida ugu wadno dabadeeto waxaa bilowday marka inay isu soo raacdo oo qof labaad iyo qof saddexaad sidaas oo kale ay u timaado muddo wajiga hore muddada aan wadno wuxuu noqday 6 bilood oo ah quraansaarka kaligiis ah oo dadka bukaan socodka imaanayo rag iyo dumar midkay noqdaanba cilaajyada caadiga ahba quraansaarka caadigana waan u wadno dadkii hore oo bukaan socodka ahaa dhirta iyo maaragtay hapolka ama shaabta laftirkoodana ku daaweynayno wajiga labaad oo ahaa marxaladii bukaan jiifka waxaan sameynay in dadkii xanuunsanaa marka hore aan qaabilno oo u baahnaa quraansaarka runtii
laakiin waxaa isla markaa laftirkeeda nagu timid inay dadka qaarkood ay maaragtay dad aan xanuunsanayn oo caafimaad qaba laakiin u baahan in balwad laga dhaqan celiyo inay noo keeneen oo dadkii fiyo ay noo keeneen baahi jirta awadeed xaafadda aan deganahay ama waxaan ba dhihi karaa magaalada Nairobi ama waxaan dhihi karaa dalka Kenya ma jirin meel dhaqan celina oo islaami ah anaga ka hor marka meeshaas in yani dadku ay go'aansadeen inay keenaan qofka si loo maaragtay على الأقل حوجان علاقات وحكده حياة درجة علاجك علاقات كده حياة مركا إن سي علاجيا أنا حوجا قبلنا قفك أصلا ماشي لوجو هايو ودبك وخيره كو هايو ماشي لوجا نفسيو أرنتي إيه لا أهيد أيامك وحنا نقول على فكر إن برنامج كان برنامج كبلارن وأبهي هاي قابك دقن أرنتا يو قابك علاجك لا وضع أرنتن مركا وحنو كلف ظروف تانو كلفتي وحن درنا إن دتك صوب بدنايان وقضب وحن كلو درنا إن دتك أباهين ملك واسع سنماشة مركا يكون جيران أو أهل جوريرو أبارتمنتيا أباهين أكتيفيتي صعد أباهين قرح ذوق لا أباهين معركتي نظافة دلفتي كذا أي أباهين صوتها قف وقف أمني جيسي لا إلى علينا يو marka sidaa rabta meesha uma nadiifin kartid intaad banaanka istaajiso ma dhihi kartid guriga nadiifanaya banaanka ii taagno oo qof aan raali ka ahayn oo meesha qasab lagu keenay marka waxyaabahaas oo dhan waxayna tusiyeen inaan u baahannahay meel ka ballaaran oo ka weyn meesha iyada ahayd oo marka shaqada aan ku wadnay marka sidaa darteed khibrad horena maynaan lahayn marka waxay nagu kaliftay inaan bal horta tilaabada koowaad aan qaadno ay noqoto inaan raadino guri weyn oo waasica oo yani boos dhammaystiran ah meeshii aan isticmaalayno waxa la yiraahdo apartment ama flat ama laba qol iyo fadhigood waxaan go'aansan inaan guri weyn qabano guri weyn aan sida ku soo qabanay oo helnay dadkii ugu horeeyay oo tiradooda aan ku qiyaasayo ilaa iyo 10 ku dhawaad ayaa gurigii u rarnay runtii khibrad baa meesha ka bilaabatay in loo baahan yahay in nidaamkan isaga loo soo gudbay uu u baahan yahay isagana standardkiisa sida sharciyeynta in sharciyo loo sameeyo in quality laga bedelo quality hore oo uu noqdo wax la yiraahdo integrated macnaha laba shay isku dhex jira quraan saarkii iyo nidaamka psychologicalka ama la yiraahdo counselingka cilmi nafsiga dad soo barta oo mutacalimiin in la keeno qofkii la talin loo sameynayo waxa kale asagana yimid waxa la yiraahdo psychiatric naas ama psychiatric doctor in loo baahan yahay dhaqaatiirta maskaxda arrimahaas iyada sharciyadii oo iyada laftirkeeda dhanka dawladda u baahan shuruudo badan arrimahaas marka waxay hadana nagu kalifeen inaan dadaal dheeraada u galno in hawsha iyada aan dhamaystirno alxamdulillah ilaahay fadligiisa waa nagu guuleysiyay hawshii iyada ahaydna waan dhamaystirnay branchiga koowaad sidaas oo cagihiisa ugu istaagay ama xarunta koowaad ee Daarshifowan sidaas cageedo ku istaagtay marka wax caawinaada oo cid maaragtay ka baxsan dadka maaragtay hadda aan la macaamilayno oo waalidiinta oo iyaga laftirkooda isku duruuf aan ahayn dad baa laga yaabaa inay agoomo yihiin oo duruufo adag ay ku nool yihiin dad baa dhici karta inay iyaga laftirkooda ay waa qurbe meeshaan Soomaaliya waxay tiraa qurbe nacas waxa dhici karta hooyadii oo iyadaba dhibkeeda iska haystay oo guriga kiradiisa la cuntadii la daara dhacaysa inuu hadana wiilka ka sii halaabo oo arinta dhib kale u keento dawa beer wax dhalay marka waxay ku kalifan tahay inay noo timaado oo ay calaacasho
runtii dee markaa iyadana waxaan la qaban karnaa la qabanaa marka waxaba yaraatee oo taakuleyn ama cid kaloona taakulaysa ma jiro runtiina alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala naguma ceebeen ilaahay waa nagu ceeb asturay maadaama waxaan ilaahay dartiis iyo inaan bulshadeenna wax u qabanno ay naga tahay ilaahay subxana watacaala wuu nala garab galay marka dabcan barnaamij noocaas oo dhaqan celina waa dareemi kartaa dadka horta waa categories ama waa qaybo waxaa dabcan ay kala yihiin markii dhinac laga fiiriyo qof xanuunsan oo mental ahaan u xanuunsan qof caafimaad qaba laakiin balwad ku jira iyo qof madax adag ama caaswaalideyn ah oo yacni lagu kari lahaa waxbarashadii ama danihii kale inta badan annaga maadaama aan rehabilitation aan nahay waxaan xoogga saarnaa inuu qofka dhinacii daraaga uu lug ku leeyahay hadduu xanuunsadana xanuunkiisa uu xanuun daraaga lug kule uu yahay oo yacni maalan tusaale ahaan qofku waa xanuunsan yahay daawa loogu talagalay inuu qaato dhaktar psychiatric usoo qoray laakiin hadduu balwad kusii isticmaalo daawadu waxba uma qabanayso marka sidaa darteed waxay ku kalifan yihiin inay reerkii inta keenaan xarumaha keenaan daawadiisana loo keeno ama marka iyada dhakhtarkeena anaga nala joogo psychiatric nurse-ka ah uu yani uu la qaabeeyo ama midkoodii iyaga horey ugu xirnaayeen uu daawada usoo qorsheeyo taa marka waxaan ka caawinaynaa annaga inay uusan qofka diraag arkin maadaama environment ama meel bii'a yani xasilan la geynayo oo daraaga laga ilaaliyay qofka labaad waa qof caadi ah mental disorder ahayn oo xanuunsanayn laakiin balwad ay la tagtay ama iska qaban la ama ahaba u arka hadduu rabo balwadda inay la fiican tahay laakiin ay dadkiisa markaa u arkaan inuu yani dhib ay ku hayso balwadda marka intaas annaga xoogga saarnaa waa categorieska labaad oo dhanka kale markii laga fiiriyo waa age-ka iyo waxaa la dhaho yani waxa uu yahay rag iyo dumar laba iyo dhadig laboodka jinsiga uu qofka u yahay iyo da'da waa jirtaa dumar xilli aan qabanaynay laakiin waxay ahayd xilli tijaabo ah oon ugu talagalna waxa feedback oo ka imaanaya markaan ogaano feedback ka imaanayna waxaan go'aansanay inaan center khaas ah intaan uga samaynayno aan dumarka iska fasaxno marka laakiin dumar waan soo aragnay waan soo qabanay waxna waan la qabanay sida bulshada inteeda kale ee ragga ah wixii aan kala kulanayna waan kala kulannay ama positive ha noqoto ama negative ha noqoto midda kale oo da'da waxaan aragnay dad waayeel ah ilaa da'da 70 sano gaaray oo nolol keenay waxaan aragnay da'yar taqriiban da'da noogu hooseyso ilaa 18 sano sida loo ogol yahay rehabilitation shuruuc iyo waxay leedahay iyo waxa la yiraahdo qawaacid loo maro marka da'da 18 ilaa 70 inta u dhaxaysa waa la kulannay waxaan aragnaa dad waalidiina oo ilmahooda ay keeneen oo nooc walba ama mental disorder ama balwad waxaan aragnay dad waalidnimo dhaafay oo awoowo ama ayeeyo noqday oo iyadana naloo keenay dad da'yar oo naloo keena waa la kulannay waxaan la kulannay aabbo iyo cunuguu dhalay oo iyaga laftirkooda la wada naloo keenay oo dadkii eheladooda ay noo keeneen runtii categorieska ama hadda qaybaha kala duwan bulshada laftirkooda dad shaqaale ahaa dad aan shaqaale ahayn oo baagamuda ah maxaa tirahdaa dad aqoon leh oo ilaa heer jaamacadeed ka soo baxay dad aan aqoon lahayn
intaba iyagana dhinaca kale waan kala kulannay. والله نيهو دتك انت بدن wax xisaaiyad hadda oo kooban ma sheegi karo number kooban laakiin waxaan dhihi karaa muddo 5 sano ah oo taqriiban aan isleeyahay sanadkii waa ilaa iyo 500 ilaa 600 qof oo soo martay sanadkii san aan taqriiban ku qiyaasayo yani haddaan yareeyo 500 qof sanadkii oo soo martay dabcan sideedaba sidii la wada rabo boqolkiiba boqol ma noqonin waxa laga yaabaa boqolkiiba 50 ama boqolkiiba 60 inay improve gareeyaan oo ay yani sidii la rabay loogu guuleystay dabcan intaas marka waxay noqonaysaa number sare marka loo fiiriyo marka dhaano 5 sano 2500 qof inay soo martay 50% ama 50 boqolkiiba marka ku dhufan taqriiban 1250 qof oo yani sidii laga rabay laga helay waa arin number 1 runtii dabcan aad baan ugu farxaa marka qaarkood markaan la kulmo dadkii wadada aan maraya dadka qaarkood ay qabtaan ma kala garan karo qaar ay soo xusuusiyo oo isu keeshay waqtigaas dadkii ku jiraan ahaa daarashafo 1 ama daarashafo 2 ama daarashafo 3 waxaan arkaa qofkii shaqaysanaya ama waxyaabaha aad aan ugu farxo waxa kamid ah waxaan arkay nin maalmaha kamid ah markii lagu jiray marxaladii ay ahayd maxaa tiraahdaa laba qol iyo fadhigiisa ay ahayd ayaa maalin hooyo ooynaysa ay timi waxay ugu tiray wiilkeedii yaa guriga wuxuu gurigu fadhiistay wuxuu ugu yiri haddaad soo noqoto adoon jaad ii keenin ugu guriga inaan gubay taraqna uu haystaa marka hooyadu ooynaysa ay timi ugu ooysay arrintii waa la gubtay waan baxay askaran haystay wiilku waan soo qabtay isaga ah runtii marxaladii waagaas iyada ahayd ay lama soo dhaafin oo ahayd labada qol iyo fadhigiisa ahayd alxamdulillah maalintii markaan keenay runtii waxaad u maleynaysay masaska leeyahay kobraha يعني عندوف بوتوفيو ندوه قالك كلا بحيو ودقع لما لكن الحمد لله إلهي فلوس سدح بلوت كذب نيكي إسقاها إسبدل وين أقول عاي ما شاء الله وحنكون فرحة نيكي إسقاها وما أنت جامعة دكري دياري رنتي ولي بطوعها ضدك أو حصة بران وحوم صبران وحوم بلاوي وحنا adult education وحبرشان ضدك وين بلاوي رنتي الحمد لله جامعة ولي اللو شرعي قبرتي مالين waxaan kula kulmay maxkamad soo joog oo la practice meeshan ku qaadanaya oo loo gaartay maalin dambe isla asaga laftirkiisa waan arkay business u furan yahay reerna uu yeeshay runtii waa saddex horumar aqoontiisii oo dhisay dhaqaalihii oo horumar uu ka sameeyay iyo reer uu yeeshay xaqiiqada uu joogaa ninka isaga ahaa ما شاء الله أنا فرحسناي أنت كلا أو كهوسيسا أما الله كل ما نلا مقايدة قاركود أنا وحكي عنايا يجو سيرفيس جرينا يدك أما السيرفيس جري وسوق شيء أما أنقرتي محاتي هذا ودوين كقاركود أنا سواري معني قار والدين تي يجو الرمال ده ورينكي وحجرة هندي أما جرا جامعات كريكتا أما جينو جوجايو كمبني وعلاب أصلا درايو بيزنس كو شغالة وكهيا runtii aad baa maaragtay waxyaabo la yiraahdo improvement ama waxqabadka miro dhalkiisa aan la kulanay bulshada waxaan kula talinayaa horta barnaamijkan waa cilmi baaris waa research waa khibrad runtiina bulshadeena aad ugu yaray arrinta noocaana waxaan dareemayaa oo koowaad in horta la soo fahmayo laakiin fahamka laftirkiisa waxaa muhiim ah oo aan kula talinayaa in inta badan dadka waalidiinta ah
ama dadka ehelada dadka keenaya eheladooda ah oo mas'uulka ka ah inta badan ay qayb ka qaadan karto qofka isbedelkiisa waa laba waji waxa waaye in qofka yani lagula macaamilo in rijal laga qabo oo lagu xisaabtamo qofkan inuu yahay qof iga qabo oo iga tuur meel uusan ahayn ee uu yahay qof dhan oo muhiima oo la rabo in laga wada mara dhaliyo la socdo labadii dhinac midda labaad oo iyadana macnaha negative na noqonaysa arrinta waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa mare arrinta waa laba shay Soomaalidu waa laba mid u baahan inaan dhinacan extreme u nahay inaan dhinacan extreme u nahay in ilmaha aan jacayl zaa'ida ula imaano ama inay noqono dad iloobay ilmaha oo ama qofka hadduu rabo caruur noqdo ama qof weyn ha noqdo laba mid bay noqonaysaa inaad ilowdo oo meesha ku tuurto iyo inaad si aan adiga laftirkaaga wax lagu qaban karin oo jacayl oo xadgudub oo la timaado marka waxaan leeyahay الحق ما بين الإفراد والتفريط حق وقبض فل يحدقدب ودحيا حق ودحيا لبضا وضو دحلو يكجران مركز حق ودحدحا المها إنان أما قفك الله دلي أما قفك مسؤول كليه هي جعل زيادة عن ولا إيمان والله تصا إن لقى مارمي كرو إن على لقى تصا إن الله تورين وإذا لفتك ولا أن الله تورين marka waxyaabo waxa dhacaya dad maanta awood u leh oo dhaqaalihiina haysta qofkiina uu la joogo laakiin ka dhaga furaysanay oo awood u leh inuu qofka wax la qabto ama wax qabto marka laba mid waaye mid waa qof naloo keenayba qofna waa qof banaanka naga jooga qofka banaanka naga jooga waxa leeyahay dadku ha ogaadaan inay jiraan anoon u hadlayn business ahaan iyo ganacsiga dhaqaale ahaan u handeynin inay jiraan in loo baahan yahay qofkan in wax lala qabto waxna lala qaban karo aan laga quusanin isbedel uu imaan karo taa waxaan leeyahay dadka banaanka naga jooga dadka gudaha ama annagoo kale ha u geystaan rehabilitation kale ha geystaan ama annagaba ha noo keenaan iyagana dadka noocaas dadaalay isku dayay inay rehabilitation geeyaan waxaan leeyahay labada waa aragnimo ah war qofka jacayl ziyaada hawla imaan marka maalin kasta u timaado oo madaxa u salaaxdo oo waa ku jecelahay aad tiraado oo maanta oo dhan waxa marka horaan banaanka waxaad ku soo hadlayso waa noocan marka inaad tusto in yani waji kale aad leedahay oo alool adayg aad leedahay kan kale iga qabo tuuritaanka ah waxaan leeyahay qofka saa waxba uguma qabsoomayaan waxa ugu qabsoomayaan inaad la socoto marxaladiisa iyo waxa lagaaga baahan yahay iyo isbedelka sida loo baahan yahay markay u baahan tahay in indhaha loo kululeeyana xilligeeda ay ku habboon tahay aad samayso markay u baahan tahay in laga warqabana xilliga ay ku habboon tahay aad ka warqabto sidaas